السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليقه إذا الكيم بواند السلام ويا سلام كبعد ساكم حالها يا ما شاء الله تبارك الله وحن رباه روتين كيغا أما مورنين إن شاء الله بإذن الله الرحمن وراعد إذا عافيمات كله يعني كوكو راعد إن شاء الله بإذن الله الرحمن إنان إذا الشير قرأي هدي ربي قرأ لك هذا weliba dadka caloosha haddii aad rabto inay calooshaadu jilicsanaato inay calooshaadu rabbiga raxmaanka haddii uu raali ka ahaado inaad calooshaada rabto inaad jilciso aniga way adkaan jirtay maasha allah tabaaraka allah haddii ay caloosha ku adkaato ama ilmaha ay adkaato waa xanuun wax ka xunna ma jiro qofka bini aadamka halka uu ka noolyahay waa calooshu haddii ay ku fadhiisato wallahi billahi noloshaada dhan boorin baad dareemaysaa marka hooyooyin fara badan oo la tacaalaya oo la dhibaataysan baa jira marka hooyo waxaan kugula talin lahaa naftaydana aan kula taliyey oo wax badan kaga gartay inaan saaka kula sheer gareeyo insha Allah biidnillahi raxmaan ayaan jeclays say hooyooyin fara badan oo xanuun dareemaya xanuunka Allah subxaanahu wa ta'ala ka kor qaada insha Allah biidnillahi raxmaan marka koowaad hooyo waxaad isticmaashaa haddaad joogto wadamada qurbaha haddaad wadamadeedii joogtana waxaad isticmaashaa burka madow insha Allah biidnillahi raxmaan ama alaabtii la isku dardari jiray muxuu sida boorashka kala ahayd alaabta isticmaal iyadoo qalalan insha Allah biidnillahi raxmaan waana soo gali doonaa haddii rabbigu raali ka ahaado ka raali ahaada gabadh yar waxay weydiinaysay maasha Allah tabaarakallah marka haddii rabbigu raali ka ahaado waad isku dhex daraysaa macaan iyo dhandhanaan iyo wax kastaba sida uu jawguna u wanaagsanaado ilmihiina attraction uu usoo samaysto ood usoo samaysaa attraction ilmaha waayo carruurtu waxay jecel yihiin wax yaroo la decoration gareeyay oo sidaa loogu balbalaadhiyay insha Allah biidnillahi raxmaan roodhidan madow ilmahana way u fiican tahay adigana way kuu fiican tahay weliba siiba qofka caloosha ka cabanaya insha Allah haddii aad rabto ilmaha inaad ama calooshiisa jilciso ama ay hooyadu rabto inay caloosheeda jilciso intaba way kuu fiican tahay caafimaadkana way u fiican tahay waana gazundi insha Allah biidnillahi raxmaan waxaan ka maqnayn meesha iyaduna muxuu ahaa liin macaan ood isticmaalayso insha Allah biidnillahi raxmaan subaxa salaada hore weliba liin macaanta waxaad ka horreysiinaysaa biyaha iyo muxuu ahaaye weliba siiba sharaabkan waxaan ka sameeyey insha Allah waqtiga ii saacidi waayey inaan duubo waayo hooyo rawr haysataanahay maasha Allah tabaarakallah laakiin waxay igu soo dhacday inaan intan duubo oo aan uga faa'iideeyo hooyooyinka kale insha Allah biidnillahi raxmaan haddii aad ka heshay fadlan iyadoo dhammaystiran iyo sida loo diyaarinayo haddii uu rabbigu raali ka ahaado waqtiguna ii saacido insha Allah biidnillahi raxmaan waan kula sheer garayn doonaa waana kuusoo dhigi doonaa insha Allah waxaan idin leeyahay meel kastoo dunida dacaladeeda ka joogtaan nabad iyo cisi iyo sharaf iyo karaamo ku noolaada dhammaanba asxaabteeda quruxda badan waxaan idin leeyahay shalay tole videogii live-kii aan soo galay wuu iga kansalmay markii dambena aniga ayaa ka saaray waayo hadallo fara badan baa ku jiray anigoo live-ka ku jira layla hadlay marka insha Allah biidnillahi raxmaan anaa kan kansalay raali ahaada insha Allah hadday nabadnahay naftuna ayaama joogto waynu isla soo sheekaysan doonaa insha Allah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.